20 kiish 10 kiish oo bariis ah iyo 10 kiish oo sonkor ah kuwaas oo ugu talagalaya dadkii ku barakacay daafaha degmada Gurceel dadkaas oo meeshaasi ku dhibaataysan si ay ayagu gurmadka ee walaalaha Soomaaliyeed oo muslimiinta ay u gaarayaan gacantooda u gaarsiinayaan ayaguna inay u gaarsiiyaan midaas anigana ayagii kala gudoomay waxaan gudoonsiinayaa maartay gargaarkaas walaaltinimada oo gacansiinta haddana waxaan rabaa raashinka ay ayaguna gudoonsiin ay soo garteen walaalihii guddigii u aruurinayay ama ku taakuleynay hawshaas ku jiray yaan rabaa inaan ku wareejiyo xibin kamid ah raashinkaasi walaalkay Umar raashin 20 kiish ah oo sokor iyo bariis isugu jirta oo walaalaha ay ugu deeqeen walaalahoodii dhibaataysan daafaha degmada Gurceel ku nool raashinkiina waa kan waan kugu wareejiyay Umar Dheere oo xubin ka ah guddiga kana mid ah ganacsatada magaalada Dhuusamareeb ayaa kala wareegay deeqdan raashinka ah oo loogu talagalay dadka reer Gurceel waxa uuna sheegay in ay ku dari doonaan deeq kale oo magaalada laga aruuriyay isla markaana ay ku wareejin doonaan maamulka magaalada Dhuusamareeb si loo gaarsiiyo dadkii loogu talagalay garadkaas ay garteen ganacsatadii idinka horreeyay iyo maamulkii caasimadda inay la gaaraan ayuu isku duuban walaalaha barakacay ee degmada Gurceel aad ka qayb noqotay oo ku maadsantiin waana idinka gudoonay waxaan ku dari doonaa hadii la yiraahdo deeqda loogu talagalay arintaas hawsheeda aan ku jirnay bariyahaba anigoo kamid ah guddigii hawshaas u istaagay ilaahay dartiis u istaagay inuu taakuleeyo arintaas kana qaado walaalaha kale ee ilaahay wax maaliyay maalkooda ka qaado ee walaalahaas kale uu gaarsiiyo iyo maamulka caasimadda oo ayaguna hawshaas dhinacooda ka wada hadii la yiraahdo maamulka caasimaddan si gaarsiinayna asaga si wareejin doona